Lo yello ay fogsanayo wabadane dayaci wakaso bilane bishari wabilghayr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وصلى الله على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. وكلها هو مهتنتين horta ma ahan markii la afgambiyey ma ahan waa markii magaalada uu ka baxay waa Muqdisho uu ka tagay kacaanka October 22keedii 1969 buu dhashay 22 sano maamulka wadanka buu hayay bixitaankiisa biyuu waa socday qasabadaha wax walba sidoodii ay ahaayeen marka kadib baa burburkii bilowday cisbitaalada sidoodii ahaayeen iskuuladana sidoodii ahaayeen jaamacadana sidoodii bay ahaayeen marka kadib baa waxaa la sameeyay burbur total ah oo wax bini aadan sameeyaba aan ahayn cidii joogtay way joogtay cidii maqashana way maqashay dhalinyaradiina maanta war uma haysaan waxaa laga bilaabay adeegyadii bulshada ayaa laga bilaabay si lagu baabi'iyo aada mustaqbalba aada u samaysanin madxafyadii librarygii biblioteekyaashii ayaa laga bilaabay waa la baabi'iyey buugaagtii jaamacadihii baa laga bilaabay waa la baabi'iyey buugaagtii sonkor baa lagu duubtay waraaqahoodii buugaagta inta la jarjaro ayaa sonkor lagu duubnaa kiila loo iibinahayay magaalada Muqdisho waxyaalaha ka dhacay haddii lagu soo xusuusiyo waa wax maaragtay caqliga bini aadamka ka badan waa howlo maaragtay sataniik ah oo shuqul shaytaan waxaa shaydaan ah aqoontii baa la jarjaray sonkor laga duubtay dukaan la iska dhigtay dugsigii baa la burburiyey sabuuradihiisii kuraastiisa cisbitaaladii baa la galay sariirihii baa la soo wada jiitay guryaa la wada geystay cisbitaalkii la oran jiray Digfer dabqiisa labaad makiinad cajiin baa lagu xiray oo been ahayn si la qiyalti makiinad cajiin dabqa labaad hatta dabqa hoose maaha markaas isbitaalka dhan wada lolana makiinada cajiinka maartay waad garanaysaan يعني وحياله ابسورد يعني انا عقلي بقى انجلي كرين هوتيل جوبا طبقه افراد بقى لو خيرتي كل بيزاخ وديباتوينكي مارتي ودلن رجا لا ربا ان لغو سميه تاريخدا جامعadaha laga baabiyay library-yaasha laga baabiyay meel walba laga baabiyay sababta lagu baabinay ma garanaysaa marka dhalinyaro oo ilaa ilaa kan nagu socoto sababta waxa weeyaan qani baan nahay wadanka adduunka ugu qanisan baan nahay qanimadaas ayaa lagu diidan yahay qaninimadii adiga aad lahayd oo Ilaahay ku siistay yaa la doonayaa in maaragtay lagu gumaysto hurdada ka toos labada kun dawladii artay dhisay ayaa asaas u ah dawladda hadda shaqaysa marka xilligaas ka waran dawladii soo maray oo ku mirgaarka ay dawladii ka dambeeyay ka waran حاسبدل ودك qaabku soo kobcay 19 aan ka soo bilaabno dawlad baa la sameeyay oo la yiraahdo 2 sanadood ku milgaara oo la yiri 2 sanadood kadib in dawlad kale maartay madaxweyne kale soo koro oo baarlamaanka kale la sameeyo oo nidaam kale lagu tashto la heshiiyo 2000 waxa ka horeysay dawladdan ma shaqeysay waa maysan shaqeyn oo dagaal baa la keenay oo maartay qir ana noqonaay madaxweyne may ana noqonaay kan may ana noqonaay marka kulligeen madaxweyneyaal ma wada noqon karno ra'iisul wasaarayaal ma wada noqon karno baarlamaan ma wada noqon karno kulligeen qof waa in loo sii daayaa oo xilligiisa la sugaa wax wanaagsan iyo wax xun buu wuxuu sameeyo waxa dhacday 2000 xal ahaan si xal loogu helo nidaamka meesha ka jiray nidaamkii baa wuxuu noqday maalinkii hubka la jabsaday ayaa maaragtay dad baa si gooni ah beel ahaan isku hubiyay beelaha yani qabiilayaasha barnaamijkan waa barnaamij loogu talagalay inaad madaxaba kor u qaadan qabiil marka loo habeeyo qir baa imaani wax kale ma imaanayo ya hogaami kooxeed ha hogaami kooxeed waa hogaami qabiileed
يعني wax kale lagu sheegin koox ma jirto oo maartay independent maartay yani dad isku yimid oo ah ma waa qabiil baa biirsaday hub buu samaystay hubka muxuu yahay waa hubkii dawladda waa hubkii militariga waa hubkii booliiska arta la tagay intii ugu xoog waaweyneed maartay hubka badan sida tay xoogaga waaweyn lahayd baa la qaybiyay waxa la yiri bal afar beelood ha loo qaybiyo inta aan hubka haysan dhibaatada loo geystay oo victim ka ahayd waxa la yiri bar hal kale ma jirin birigaas hal kale ma jirin oo da koox hal kale ma jirin birigaas halka wuxuu ahaa in sida wax lagu xaliyo qoladana barkan bar ahaan loo siiyo waa laga qayliyay oo ka qayliyay qolooyinkii meesha joogeen anaga calashan dad ma dilmiya waxba ma dhicin macna waxba lama siinay cidii wax dhacday wax noqonaysa way ahayd xilligaas ay sida ahaa waxay ahayd maartay horumar wanaagsan la gaaray wax un baa la isku soo afgartay mudane Ismaaciil Umar Geele ilaahay khayr ha siiyo cimri dheer caafimaadna Allah ha siiyo wadankan wax badan buu sacrifice buu soo sameeyay oo wax badan buu u horay naftiisa xataa uu horay oo xaqiiqa dad baa yiraahdaa waa abaal la gashtay ma Soomaalinimada damaqaysa Soomaalinimada waa inaad damaqdaa kan jigjiga joogo waa inaad damaqdaa kan dirir dhaba joogo waa inaad damaqdaa kan jooga Libooya Kenya waa inaad damaqdaa kan jooga Wajeer waa inaad damaqdaa Soomaalinimada ayaa kicisay inta kale way damaqeen waa kaceen laakiin isaga ayaa noqday qofkii Ilaahay maartay 2000 marka dawlad baa la keenay dawladii arag Muqdisho ka soo digtaa bilaabatay arag soo digto dawladii Muqdisho ka soo digtay dadweynihi waa haraadsanaayeen maxay u haraadsanaayeen dawladnimo waa haraad qabeen way daaleen dadweynihii waa la soo dhaweeyay si aan malayn karin baa loo soo dhaweeyay dadkii dhaaranay way yaabeenba soo dhaweyntii dhinacooda ka raaceen waa si wanaagsan loo soo dhaweeyay aad weyn istaadii Muqdisho lagu soo dhaweeyay oo waliba lug ku soo galeen yani Cabdiqaasim wax wanaagsan buu sameeyay Cabdiqaasim buu ahaa madaxweynaha markaas dawladii ugu horeysay marka laga soo tago 1990kii Cali Mahdi markii laga soo tago Cabdiqaasim marka wuxuu sameeyay waa fiila Soomaaliya waa la degan yahay madaxtooyadii qaranka qolada degan qabiil baa deganaa sila qiyaaltii qabiil baa deganaa seen isku dhac kale u iimaan hadana Cabdiqaasim meel gooni uu ka degay meel la yiraahdo Taleex buu ka degay number 4 madaxtooyada Cabdiqaasim baa loo bixiyay xal bay ahayd ayadana xal bay ahayd sida 4.5 ku xal u ahaa ayadana xal u ahayd maartay Cabdiqaasim inuu fiilada agteeda ka dhawaanin oo agaarkooda uusan tagin oo maartay meel gooni iska joogo sababtoo ah hadduu tagi lahaa fiilada isku day lahaa isku dhac baa hadana imaan lahaa dadweynihi sidoodii u burbursanaa wadanka sidiisa uu soo burburi lahaa si aan loo gal marka burbur kale halkaas ka degay Abdullaahi Yuusuf baa yimid asna wuxuu dalbaday 22,000 oo ciidan ah oo xabashi ah waa baasweerka maartay moodkood oo Soomaalida fura amxaar hadaad warmaana amxaar ilaa waaba dagaal ma amxaar baa hadana la keenay qabarta meesha ka bilaabatay kacaankii aanu laabana marka October wax weyn bay sameysay taariikhdaas la baabiinay way soo ururisay oo isku keentay oo dadkii bari jirtay dhalinyarada yararka ayaa la bari jiray wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ayaa la sameeyay barbaarinta ilaa aan kan barbaarinta waaxda la yiraahdo way ka maqan tahay wasaaradda waxbarashada وانا واحد ugu muhiimsan ee dhalinyarada baraysay xaqqa wadanka uu ku leeyahay iyo xaqqa isaga lagu leeyahay wadanka xaq buu ku leeyahay adna xaq baad ku leedahay labada hadaad kala garanaysid wax dhibaato ma imaanayso hadda imika waxa arkaysaaba dhalinyarada badankoodu inaysan garanayn xaqqa wadanka uu ku leeyahay iyo ayaga xaqqa ay ku leeyihiin waa waaxdii barbaarinta ay dhis lahayd arrimahaas way ka maqan tahay ilaa aanka wala iska dhigatiraa wasaaradda waxbarashada iyo maxaa la yiraahdaa hidaha iyo tacliinta sare
اوكي تعليم سر waa loo baahan yahay laakiin waaxda barbaarinta waa ka sii muhiimsantahay waa nimankan tacliin sare tagaya waa in maartay wadanimadooda waa inay dhisnaataa haddii kala birito waa la iibsan cid adag mooye cid kale waa la iibsan haddii aan ku laabano siyaad bar xilligoo joogay suugaan kala duwan